kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka. qodobadaad wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah midowga Afrika qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya inay si degdeg ah uga laabato heshiisyada ay la galayso maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayuu xiriirkoodu xumaaday iyadoo xaaladdu ay meeshii ugu adkeyd gaadhay. dowladda Soomaaliyana ay gebi ahaanba ka mamnuucday diblomaasiyiinta dalka Itoobiya gudaha dalka Soomaaliya. jamhadda OLA ee ka dagaalanta deegaanka Oromiya ayaa sheegtay 3 jibaar deegaanka Oromiya inay gacanta ku dhigtay ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya inay iskaga huleeleen guud ahaanba gobolka Oromiya. dagaalada u dhaxeeya ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo jamhadda Fana ayaa saacadihii la soo dhaafay si weyn uga socda deegaano ku hareeraysan caasimadda Baxardaar, iyadoo ciidamada Fana ay sheegeen inay qaadeen weerar rogaal celis oo aad u ballaaran oo gebi ahaanba ku qabsanayaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmaarada. xoogagga Tigray ayaa sheegay inay ciidamadoodu gudaha u galeen deegaanadii sida weyn la iskugu hayay waa gobolada Walqeeta iyo Raaya, iyadoo ciidamadaasi Tigray maalmihii ugu dambeysay ay ka dagaalamayeen deegaanada ku hareeraysan Alamaata iyo Koram iyo deegaana ay xoogagga Fana si weyn iskugu hardiyeen. maamulka Puntland ayaa sheegay dowladda Soomaaliya inayna ka shaqeynin gudaha Puntland dhowaan eriskii qunsuliyadaha maamulka Somaliland iyo Puntland ay dowladda federaalka ku lahayd inuuna waxba ka jirin shaqeyna doonin Itoobiya xiriirka ay la yeesheen inuu halkaasi ka sii socon doono. xaaladda Soomaaliya ayaa aad u cakiran iyadoo dowladda Soomaaliya ay ka fikirayso tallaabada ay ka qaadi doonto maamulada Puntland iyo Somaliland. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa. barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay gooni oo soo dhowow. warkan ayaan u gudagalaynaa. waxaan tegaynaa dalka Itoobiya. dagaalo aad u culus ayaa ka soconaya gobolka Axmaarada oo u dhexeeya militariga dalka Itoobiya iyo xoogagga Faanada ee xoreynta shacabka Axmaarada oo waayadii ugu dambeysayba dagaalo culus kula jiray dowladda Itoobiya. xoogagga Fana ilaa waqtiga ay Tigraygu ay weerareen gobolada ay ku maraysan yihiin qowmiyadaha Axmaarada iyo Tigrayga cadbada dagaalkooda in si weyn warbaahinta looga qariyay, laakiin uu dagaalku halkiisa ka sii socdo. taliya sare oo wada ciidanka Fana ayaa sheegay inay dhulka ay gacanta ku hayeen wali gacanta ku hayaan ayna dagaal culus kula jiraan dowladda Itoobiya. dagaalkana ay sii wadi doonaan ciidanka dowladuna uu yahay mid aad u liita taagtiisu oo ciidanka Fana ay guulo waaweyn ku taageen marba marka ka dambeysana ay dhul horle ay ka qabsanayaan. waxaad moodaa dalka Itoobiya dagaalada ka socda inay noqdeen kuwo gebi ahaanba indhaha caalamka laga qariyay, laakiin dadku sida ay moodayaan ayna ahayd xaaladdu mid aad u adag. ciidanka Fana waxay sheegeen inay ka dagaalamayaan nawaaxiga caasimadda deegaanka Axmaarada waa magaalada Baxardaar oo ah meesha maartay sida weyn loogu hardinayo ee mar walba qoladii gacanta ku dhigta ama ku awood ronaata ay warbaahinta caalamka iyo adduunka ay ka gadayso in iyadu gulo weyn dagaalka gaadhay. waxaan ogeyn waqtiyadii ay Faanadu gobolkaasi ay gacanta ku dhigtay ama magaaladaasi inuu adduunku si weyn ugu qaliyo xaaladda dalka Itoobiya, iyadoo rasuulaha Itoobiya lagu cadaadinayay inuu xabad joojin degdeg ah ku dhawaaqo xoogagga namiiska wada hadalka la fariisto. laakiin ra'iisul wasaaruhu hadda waxaan moodaa inuu dagaalka uu ku mashquuliyay xaaladda dalka Itoobiya oo iskaga jihayay dhanka iyo gobolka Tigray oo xoogagga Tigray meesha hadda ay colaadu ka aloosantahay ama duulaanka aad u ballaaran uu ka socdo, iyadoo tii Axmaarada aad mooday in laga dulmariyay tan Tigray iyo Axmaarada oo indhaha caalamka iyo reer galbeedkuba ay si weyn isha ku hayaan oo ay leeyihiin dagaalkaasi waa in si degdeg ah loo hakiyo. laakiin gooniyow midowga Afrika qaramada midoobay waxay sheegeen in dowladda Itoobiya ay ugu baaqeen inay si degdeg ah u joojiso faragelinta ay ku haysay dalka Soomaaliya. barnaamij ka baxay telefishinka xoogagga Fano ayaa lagu sheegay inay midowga Afrika iyo qaramada midoobeydba ay u soo jeediyeen dowladda Itoobiya maamulka Abiy Ahmed uu ku khaldan yahay faragelinta. ma la dhihi karaa xoogagga Fano inay baahinayaan barnaamijyo dowladda Soomaaliya lagu taageerayo kusoo dhawow gooni qodobkaas? sidoo maasan tahay arrinta sidaas ay u eg tahay waxaa warbaahinta Fano maanta lagu baahiyey war ay qoreen qaramada midoob iyo nimanka lagu magacaabo midowga Afrika.
ayagoo markaasi hanjabaad adag u diro culeysna saaray Abiy Ahmed inuu ka laabto heshiiskii badda uu la galay maamul goboleedyada gaar ahaan kii Somaliland marka waxaa loo sheegay in faragelinta uu ka daayo Soomaaliya haddii uu ka daayo inuu cunaqabateyn la saari doono arrinta waxay aad u bumburinaya weli warbaahinteeda aad markaasi uga hadlayso in deegaanada Amxaarada ay aad looga daawanaya waxaana wararku sheegayaan ilaa 40 milyan oo Amxaara in hadda warbaahinta ay aad markaas u sheegayaan una bumburinayaan haddii ahla idaacadaha localka iyo telefishinadooda marka waxaad dareemi kartaa in Abiy Ahmed culeys weyn ku saareen midowga Afrika iyo qaramada midow digniin u direen kama dambaysa haddii kale cunaqabateyn 120 milyan oo Ethiopia isagoo hogaamiyay in la saari doono marka Abiy uma eka arrintaasi inay suuragal doonto walow leeyahay guddi oo Musabbix u soo magacaabay in dhameystiran heshiiska badda inay ka laabteen oo iscasileen waliba ay rabeen in warbaahinta la hadlaan Musabbixina u diideen warbaahinta la hadlaan haddana su'aalo lagu weydiinayo in aqalka madaxtooyada Somaliland sababta isku casileen iyo waxba ogaadeen waxa leeyahay guddigan waxay ogaadeen in Musabbix oosan wax aqoonsi Somaliland la yiraahdo aysan meesha ku jirin sidaas daraadeed inuu heshiiska uu kula galay kaliya dana shakhsi isla markaana dhaqaale inuu ka qaato darteed ayuu heshiiskan ula galay arrintaas markay ogaadeen waxay sheegeen waa khiyaano qaran mana aamini karno hadiiba mar aqoonsiga Soomaaliland meesha ka maqan yahay sidaas daraadeed ay guddiga isku casileen marka waxaad dareemi kartaa in arrintaani ay fashil soo wajahday culeys weyn oo soo wajahay walo Ethiopia wali ay ku sii dhiranayso faragelinta Soomaaliya oo hadda la leeyahay heshiis kale ay Soomaaliland ay Puntland la siicdeen taasna waxay noqonaysaa in waxa soo dejisay in safiirka iyo qunsuladiiba la ceeriyo wali muddo 7 loo qabto markaasna safiirka in si degdeg ah wadanka uga baxo lagu amray marka waxaad dareemi kartaa in cadaadiska dhan walba uu ka saaran yahay marna haddii dawladda Soomaaliya waxa leeyahay tilaabadii hore ay qaaday iyo jawaabii hore ay ka celiyeen mid ka adag ay had sameeyeen waxaana taas ay muujinaysaa leeyahay dawladda markaan in uu tala gashay inay si toos ah oo bareer ay iskaga celiso nimankan lagu magacaabo maxaa la yiraahdaa Ethioopiyaanka in dawladda Soomaaliya markaas heegan gelisay ciidamadeeda una diyaar garowday qaabkii ugu falcelin lahayd dhibaatadan haddii lacag Ethiopia isku dayday in dagaal ku soo qaado Soomaaliya gooniyow dhawaaqan ka soo yeedhay midowga Afrika iyo qaramada midoobay sida aan u jeedno hadda wax ka hadlayo xoogagan Axmaarada ay dawladda sayaan macallin maxaafid waxay leeyihiin waxaad moodaa inay la safan yihiin dawladda Soomaaliya oo bumburinayaan barnaamijyada dawladda Soomaaliya lagu taageerayo wax warbaahin oo wax dawladda Ethiopia makaash ama dawladda Soomaaliya ama wax kale oo تفاصيل انت كده ما لها يا دواق سوي الميدو افريقيا قرمنا ميدو arintani waa arin shacab baxsan laakiin de qof walba soo gaartay waxayna ku socotay fariintan si toos Abiy Ahmed ku socotay oo kuma aysan soconin adduunka Abiy Ahmed warqada si gooni loogu diray waxaana warqada si nuqul kamida gacanta ku dhigay xoog mucaaradka gaar ahaan nimanka lagu magacaafaan sirdoonkeeda gacanta ku dhigay waxayna la shaqeeyeen Abiy Ahmed waana sirdoon ku sugan magaalada Addis Ababa arintaas markuu xiriir gelisay inay xogti ay helaan warbaahintii isla markiina si toos loo bumbuuniyo marka waxaad dareemi kartaa faan guulaha ay ka gaarto in magaalada Muqdisho laga bumbuuniyo oo telefishin qaranka Soomaaliyeed oo bumbuuniyo ayagana wixii xog ay helaan Soomaaliya ku saabsan Abiy Ahmed lagu dhibayo inay ka bumbuuniyaan gudaha dawlad deegaanka Amxaarada arintaas marka waxa la leeyahay xiriir wanaagsan ay ka dhaxeeyo mucaaradka Ethiopia iyo waxa xiriir ka dhaxeeya nimanka dawladda Soomaaliya arinta marka waxay hirgelin doontaa haddii cilaaqaadka uu sii kordhiyo Abiy Ahmed oo la leeyahay maamul goboleedyada waxay dawladda Soomaaliya sii kordhin doontaa cilaaqaad aad u weyn sida afgambiga dhicisoobay oo lagu eedeeyay dawladda Soomaaliya ka dambeysay iyo waxyaabo kale markaas xiriir ay kula leeyihiin nimanka lagu magacaafaanada marka arintaas waxay keenaysaa in isku soo dhawaansho mucaaradka Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya iyo ma halka Abiy Ahmed uu kaga dhawaanayo ama markaas uu si gurguranayo nimanka mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya sida Puntland iyo Somaliland arinta marka waxay noqon kartaa si degdeg ah in jawaab looga bixiyo dawladda hadda jawaabta ay qaadan waxa leeyahay mid wanaagsan laakiin waxa loo baahan yahay in diyaaradaha Ethiopia arrin la joojiyo muddooyinka soo socdo marka wasaaradda arrimaha dibadda arrintan horgeliso nagasta waxay noqon doontaa in si toos ah Ethiopia arrin loogu joojiyo Soomaaliya kadibna xiriirka labada dawladood si toos ah u go'o waxaana jira wadamo kale oo Ethiopia gadaal ka riixo eegna xiriirka loo jiri doono sida Imaaraadka Carabta sida warka nagu soo gaarayshado waa maadsantahay gooniyo waxaan tagaynaa deegaanka Axmaarada waxaan ka wadaa deegaanka Oromiya waxaa ka socda dagaalo aad u culus oo u dhaxeeya ciidanka militariga dalka Ethiopia iyo xogaga Owale ee xoreynta shacabka Oromiya jimhada Owale waxay sheegtay deegaanka Oromiya ugu yaraan markii 3 loo qaybiyo 2 iyo bar inay gacanta ku dhigtay deegaano aad u tiro yar inay gacantooda ka maqan yihiin xogaga Owale waxaan u soonahay dawladda Ethiopia in waayadii ugu dambeysay ee dagaalka lagu jiray xogaga Axmaarada inayna dhaxdooda wax dagaal ka socon xataa ciidamada Owale lagu arkay gobolka Shewa oo ah dhulka Axmaarada iyo qolyahan ama gobolka Walega iyo dhulka Oromada ay wada degaan in ay ciidamada Owale halka ka dagaalameen faani iyo ay kula dagaalameen maleeshiyadka Axmaarada la arkay militariga Ethiopia iyo xogaga Owale oo hal goob ku wada dagaalamay sida ay warbaahinta Axmaaradu ay sheegtay hadda waxay leeyihiin militariga Ethiopia ay ka soo sifaynay gobolka Oromiya qarka wuxuu saaran yahay inuu dal madax banaan noqdo ma khilaaf horle oo Owale ay ka dhax qarxay jiray dawladda Ethiopia inkastoo markii hore uu dagaal ka dhaxay heshiisna jirin
laakiin qolyahan oromada labada dhinacba hogaamiya waxay heshiis ku hayeen difaacida magaalada Addis Ababa waa ka soo yeedhay OLA sida wartaa wax badan markaasi shido isbedelay OLN waa niman markaasi kana soo horjeedo Abiy Ahmed marna la jiro sida dareemi karto mar qabiil ahaan ay niida ku hayaan waxay leeyihiin amxaar meesha qabsan lahayd idinku horta Abiy iska haysto marna waxay leeyihiin ina OLA qaybteen in anagu qabsano wadanka ay noo wanaagsan marka dhawaaqyada ka soo yeeray waa waxyaabo aad markaas halis u gelinayo isbedelka Ethiopia ku socdan waxa dareemi kartaa marka la fiiriyo OLO iyo Fano iyo Qoreyga iyo xooliga marka ku socda ay dareemi kartaa in markaas isbedel weyn Ethiopia gudaheeda ka jiro marka Ethiopia way kala tagaysaa qaabka ku socotana waxay noqonaysaa tafaraaruq aad u weyn taasna waa mid ay Soomaalida aad u daranayso maadaama fargelinta Soomaalida ay ka deegaayeen marka OLO waxa la dhigaa in horta timoodu dhinac ma xirmaano niman la fahmi kara ma aha oo marba dhinacay markaas qoorta la galaan mar Faanada la dagaalaya mar Tigreega waa la dagaalaya mar waxay leedahay Abiy Ahmed naftiisa la dagaalayna marka qorshooyinka ay Faano wataan qof si toos u fahmi kara ma laha shido xaaladda waxa la dhigaa lama taabtaan ay noqon kartaa gooniw qodobareedkan ugu dambeeyay maamulka Puntland waxay sheegeen sharciyada ay dawladda soo saartay ee qusuliyada ay ku xidhay Garowe iyo Hargeysa inuu yahay wax maartay qowda muqdisho waxna u qabana ayagu ka taliyaan dawladda Soomaaliya ana lug soo gelin karin heshiiskii ay la galeen dawladda Ethiopia oo halkiis ka soconay sidoo warta halkaas afayeenka ciidid ninkliirada afayeenka warfaafinta ee Puntland ayaa waxa la hadlay VO-da wuxuuna sheegay in Puntland iyo Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxba iska quseen qorshooyinka ay hadda ay wadaan inaysan ahayn mid sax ah wuxuu sheegay in dawlad sax ah oo Soomaaliya laga helayo inay xiriir qofka rabaan ay la geli doonaan in hadalada ay soo saareen iyo qusulada ay ceeriyeenna inaysan quseyn doonin Puntland aysan ka shaqeyn doonin taas waa marka xadireemi kartaa maamulka Puntland inuu dhinac isaga raaxay dawladda Soomaaliya oo leeyahay intii dawlad sax laga helayo marka Puntland waxa la leeyahay in ilaa 98 ilaa hadda ay jireen dawlad federaal oo ka dhalato gudaha Soomaaliya waxay leeyihiin dawladii rabay saxda ahayd ma aha ilaa ma garan karo markii dani ama qof ma jarteen oo madaxweyne ka noqdo Puntland Soomaaliya moogi inta ka horeysa ma taageeri doonaan waxa dareemi kartaa in waaga Cabdullaahi wixii ka dambeeyay inay diideen in markaas ay la shaqeeyaan dawladda Soomaaliya sida Sheekh Shariif Xasan Sheekh Farmaajo iyo Xasan Sheekh qad soo laabtay intaba waxay leeyihiin dawlad sax kama jirto xiriirkan u jarnay ma dawlad madax bannaan u dhaqmayna hal mar oo Puntland ay taageertay dawladnimada Soomaaliya ku qanacsantaana ma jirto fadhiyada kala fadhiyada oo ay yeeshaan guddiga midowga maxalliga amniga qaranka la yiraahdo in kama soo qayb galaan afarta maamul goboleed dawladdu soo ogol yihiin waxa kaliya diidana leeyahay waa nimankan lagu magacaabo Fano nimankan lagu magacaabo waxa diidan Puntland kaliya kuwa kalena way ogol yihiin marka waxa dareemi kartaa Puntland ay gooni u socoto waxa ay rabtana waxa loo maleynaa in dana shakhsi ay tahay madaxda halkaas ka noqonaysa madaxda Puntland ay waxay doonayaan mar walba in wax dana shakhsi ay ka helaan gudaha Soomaaliya taasna way suuragal lahaashido ومعتن يا جوني داود يا لينك أنا ما تسنتين برنامج الشيشة قرية ميل فوقنا جارسيا حالة جيس كأفريقيا مركا كذا بيس آدي أيوسي كورلانسا Soomaaliya Ethiopia markale ay Suudil qaadeen xaaladooda markale ay dib u soo cusbanaatay dawladda Soomaaliya waxay ka fiirsanaysaa baa la yiri xiriirkii soo jireenka ee dalkaas Ethiopia ay ognahay in safiirkiina ay qusulidiina la xiray haddana Soomaaliya waxay qorsheynaysaa tallaabooyin ka culus kuwii horeeyay markale ayaa fadlan isdaraya sii sheegay barnaamij inta barnaamijka mid ku doono sida ay nabadgelyo